kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baad ku xiran janaalka kulmiye technology koorsadani waa koorsadii C++ cashirkuna waa cashirkii 13 maanta waxaan doonayaa inaan halkan idinkaaga sharxo dibna aan u sii guda galo tutorialkii hore waxaan ku soo qaadanay variable qaybo kamid ah maanta waxaan doonayaa inaan sii dhameystiro qaybihii ka dhinay qaybihii aan soo qaadanay waxaan hore u soo qaadanay sida ogtihiin variable dhahay integer kaasoo kaliya loogu talagalay in lagu xareeyo tiro nadiif ah tiraan dhibic laan amba jajab laan sida u taqaan waxaan kaloo soo qaadanay data type la dhaho character kaasoo asigana loo ogol yahay in lagu xareeyo xarfo intii wuxuu qormaysaan character-kana wuxuu ahaaysan asigana kaasoo kaliya loo ogol yahay in lagu xareeyo hal xarf kaliya waxa loo ogol yahay hal xarf waxaan soo qaadanay data type kale oo la dhahay string kaasoo asigana loo ogol yahay in lagu xareeyo hal xaraf iyo wixii ka badan haddii aad u baahan tahay waxaad ku xareyn kartaa 100 eray feel dhan oo erya ah haddii aad hal eray haddii aad hal magac haddii aad 100 magac wax allaale waxaad u baahan tahay kaliya waxaad ku xareynaysaa waa inay yihiin xarfo haddii rabaan string haddii rabaan way noqon karaan aan tiro maxaa yeelay waa loo ogol yahay data type-ka maanta waxaan doonayaa inaan laba kale aan ku daro kuwaasoo ah haddii aan rabno inaan tiro xareyno tiradaas haddii ay dhibic leedahay sidaad hore usoo barateen waxaan soo qaadanay inti haddii aan rabno balka waran programka aan sameynayno inuu lacag iyo waxyaabo sidaas lamida oo looga baahan yahay jajab oo la falgalayo sidaad ogtihiin programkeena balse maanta waxaan doonayaa inaan la wadaago data type kaasoo kuu ogolaanayo inaad ku xareyso tiro jajab leh hore waxaan soo baranay hal data type kaasoo lagu xarey karo tiro nadiif ah sida 100 ambi kala 10 20 30 aan jajab laan tusaale sidaan oo kale looma ogola in lagu xareeyo data type-ka intii ah balse data type-ka loo ogol yahay waa laba data type kaliya waxay ku kala duwan yihiin size-ka waxaa ugu yar kana dhexdhexaad ah mid kuwa kaloo kasii yar way jiraan waxaa jira waxa la dhahay float waxaa jira sin waxa la dhahay double waan isla arki doonaa labadaas float aa leedahay kan waa data type-ka kaasoo kuu ogolaanayo inaad ku xareyso tiro nadiif ah iyo tiro dhibic wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku xareyso tiro nadiif ah iyo tiro jajab tusaale kani waa variable-keena magaciisa kana waa data type-ka kan waa maxay kan waa data type-ka kana waa variable-keena magaciisa kan waa data type-ka macnaha waxaan ka wadaa daatada aan xareynayno aan ku shubeyno variable-kan nuuceedu waa float kaasoo loo ogol yahay in lagu xareeyo tiro jajab ah amba tiro nadiif ah labadaas midkood bal tusaale hadda yar aan qaadano waxaan doonayaa inaan wax ku xareeyo haddii aad rabto inaad variable-kaaga wax ku shubto kuna xareyso waxaad isticmaalaysaa calaamadaas oo la dhaho equal kadib waxaad ku shubtaa wax allaala iyo waxaad u baahan tahay hadda tusaale waxaan doonayaa inaan ku xareeyo tiro gaarayso 10 kadib marka aad ku shubto waxa aad ku shubaysid kadib waxaad leedahay semicolon waxaad leedahay waxaan rabay waa qabtay si macnaha C++ ay u ogaato waxaad rabtay inaad qabatay waxaad leeysaa semicolon balanbaroweno variable-ka haddii uu hayo waxa aan ku shubno si aan u baroweyno una dhacdana taas waxaan isticmaali jirnay function-kan amba object-gan la dhahayo object output kaas aan isticmaali jirnay haddii aan rabno inaan shaashada wax ku soo bandhigno kadib waxaan ku dari jirnay calaamadahaas waxaa ka helaysaa inta agteeda haddii aad u baahan tahay kadib waxaad leedahay
variable ka arabta sheegaysa kadib semicolon aad iska dhigi kartaa hadaa rabtana sadar cusub oo ku daba qartaa wax macnaa ma soo kordhinayso balan fiirino hadda jawaabta oo na siinayo programkeena sida aad u jeedin variable keena waxa ku jiro 10 okay halaan hore u soo baranay bal aan isla aragno muhiimadda casharkeena maanta uu leeyahay ku xaray karnaa variable kan tira jajaba balan fiirino bounty 5 ama bounty sida u jeedin wixii bounty ka dambeeya haba loo aqriyaa 5 4 iska dhaano bounty 4 ka dambeeyso bounty 4 iska dhigi kartaa hadii aad sida sharciga raacaysan waa inaad halal u sheegtaa sida aad u jeedaan waa 10 bounty 5 4 sida aad u jeedaan dataabkii hore aan soo qaadanay kaasoo loo ogolaay hadii aan ku celiyo in lagu xareeyo tiro balse tiradaas loo ogolaay kaliya waxay ahayd inaad ku shubto tiro kaliya aanan jajab lahayn amba dhibac lahayn tusaale sidaas oo kale ama hadii aan hadda tiro jajab la aan raacsiino sida qaabkan oo kale ama aan raacsiino kadibna aan dhahno soo bandhig adigoo halka objectiga isticmaalaysid ayaa waxaad sameyn kartaa inaad sii xariiriso waxaa leedahay soo bandhig halaan waa soo bandhig maxaa soo bandhiga soo bandhig kadib hadana aad sii xariiriso intaad soo bandhiga u taagantahay kadib maxaa soo bandhiga w kadibna end line ku qabo balan fiirino labadooda kan waa float ka markuu yahay kan waa markuu integer ka xogaa space aan geliya si aad u fahantaan xataa tusaale waan ku daraa float data kiisa raacsiina kan waxaan raacsiina asigana integer si aad u fahantaan okay kan hore waa float message waa raacsi kan dambana waa integer waxyar geeskan ka sakiyo okay sida aad u jeedin kan integer ka wato oo w ga annagoo ku shubnay bounty 54 annagoo ku shubnay balse computerka ma ogolo in lagu xareeyo tira jajab ah sidaa darteed wuxuu sameynaa inuu halahan ka jaro ka reebo kadibna uu kaliya lagu xareeyo variable keena 10 kadibna noola soo bandhigo 10 hadii aad rabto inaad tira jajab ah xareyso waxaad isticmaalaysaa midkaas kaliya waxaad isticmaalaysaa marka tira nadiif xareysid ID-yada kale marka dad kumbiyo oo arday oo kale ama dad badan oo kale ama database sameynaysa ID oo sameynaysa aad ka soo xareynaysid iyo marar kale oo ka badan tusaalayaasha way badan yihiin kaliya ID kaliya kuma koobno okay waxaan rabaa inaan tusiyo hal sharci oo si balad leedahay tusaale hadii aan variable qabsado variable kaas oo la dhaho wuxuu la mid yahay 10 haddana aan dhaho inti wuxuu la mid yahay 20 sidaa u jeedin sidaan waa qalad sababtoo variable ka hore ayaa loo qabtay mar labaad computerka in la qabto ma yeelayo kaliya waxaad sameyn kartaa inaad dataabkan ka reebto kadibna aad sheegto variable ka kadib aad ku shubto qiimihii aad ku shubaysid okay waxaan rajeynayaa isla faham hadda kan aan tusiyo ma yeelayo programka maxaa yeelay wuxuu leeyahay variable kan hore ayaa loo qabsaday haddii aad rabto koodka inuu shaqeeyo waxaa ka reebaysaa dataabka kaliya waxaa leedahay okay asaa og wuu arkaa wuxuu leeyahay dib u noqo waa integer okay maanta sax waaye koodkeena caadi waa u shaqeynaa okay waxaan rabaa mid kale C++ sida ogtiin waa case sensitive language waxay ka mid tahay luqadaha oo case sensitive language waxaan ka wadaa case sensitive language
tusaale haddii aan qabsado variable lagu magacaabo x haddana haddii aan qabsado variable lagu magacaabo x oo ku shubo 30 sida aad u jeedin tusaalihii hore oo sidan oo kale camal ahay muxuu dhahay programkeena a waxay la mid tahay 20 haddana markaan dhaho a waxay la mid tahay 30 eedan waa small si fiican ula fiiri waxaan rabaa inaan meeshan ila fahanteed eedan waa small sida darteed eedan haddii hal mar la qabto wuxuu ku leeyahay eedan hore loo qabtay balse sida tusaalahan wuu ka duwan yahay intii waa u jeedin x tan waa small waxay la mid tahay 20 haddana waxaan dhahay intii x tan waa capital waxay la mid tahay 30 sida darteed labadan variable waa laba variable oo kala duwan balse variable kan la dhaho a waa hal variable oo isku mid ah sida darteed hal variable laba mar datakiisa ma la sheegi karo maxaan dhahay haddii aan aran gareeyo cilada waxay ka imaanaysaa inta si aad u jeedin cilada waxay ka imaadaan 8 kaasoo dhahay variable kan hore ayuu u jiray waxaana doonaysaa inaad mar kale noo sheegto lama ogolo balse variable kan u jeedid oo x la dhahayo iyo x tan capitalka way kala weyn balan cadeeyay midaas sida aad u jeedin wax cilada koodkeena ma qabsan wax dhibaatana ma sheegin sababtoo ah variable kan x tan small way ka duwan tahay x tan capitalka waa case sensitive haddii aad maqasho case sensitive language means xarafka haddii aad x small ka dhigto waxaad u baahan tahay x small inaad sheegto haddii aad x capital haddii aad sheegto wuu ka duwan yahay variable-kii hore aad hore u qabsatay waxaan doonaynaa data tab kale la wadaago kaasoo ah double maxaa la double asigana waa kii sida hadaayo kale floatka camal waxaa loo ogolyahay in lagu xareeyo tiro nadiif ah oo jajab lahayn iyo waxaa loo ogolyahay tiro jajab laakiin waxay ku kala weyn yihiin size-ka kii hadaayo wuxuu ahaa 8 oo macnaha meesha oo godadka kan waxa waaye 15 godadka okay wuxuu la mid yahay 20.50 iska leh kadibna soo bandhig sida u jeedin waa shaqeey koodkeena tiro jajab waa loo ogolyahay tiro caadina waa loo ogolyahay sida u jeedin labada tiraba wuu ku aqbala waxaan rajeynayaa inaad fahanteen xogaa fiidiyowga oo dheeraada waqtigiisa fadlan haddii aad fiideo ka heshay like saar youtube channelkeena haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar mahadsanid